waa tahay kusoo dhawaada shabakada som IT zone cilmiga IT-ga booqo website-ka iyo Facebook-ga page-ka like saar la socodsiiya sida ku dhaafin casharada cusub YouTube channel-ka like ama subscribe saar si aad socoto casharada aan soo gelino. Okay, waa tahay wili waxaan ku jirnaa cashirkiina book plus-ki. Okay, maxaa la yiraahdaa cashirkiina ku xamareynaa DHCP waa DHCP Dynamic Host Protocol iminka ayaan bareynaa cashirkaas ayaan qaadanayna. Okay, Dynamic Host Protocol waxa waaye DHCP waa la isticmaalaa waxaa la yiraahdaa in uu wasaco IP address-ka si automatic ah. يعني بروتوكولكان wuxuu faa'iideysa weyn tahay yani marka shirkadda tahay enterprise oo kale shirkad weyn oo mid isgaarsiin ama mid business ama mid danta ahaato waxa laga yaabaa inay yeelaan dhowr computer ka badan yani 100 computer ama 20 ama 30 ama 40 ama 500 oo computer marka in computer walba aad tagto yani aad ku dejiso IP address-kiisa hal aad u siiso yani ku adkaanaysa waxay qaadanaysaa dhowr maalmood yani dhowr bil yani si hawshaas yani u fududaato ee u qaato sakano يعني waxaan isticmaalaa protocol yiraahdo DHCP kaas oo lagu dejiyo hadii aad leedahay serverka ku tigsan yahay Windows ama Linux nooc ahaado yani serverkaas ayaa automatic u wasaacaya IP address hadii haysatani router adanaysan server routerka ayaa ku programinaysaa router Cisco ama Juniper ama Huawei waxaa programinaysaa in waxa la yiraahdaa in automatic ahaan ay u wasaacaan IP address-ka ee siiyaan computer walba ee soo gala shabakada marka taas way badanaa dadka security barto ee aad u taxadiran ee ka digaan in IP address-ka DHCP-ga la dhaxdhigo router-ka yani wuxuu ku qurux badan tahay in la keeno server u qaas ah inta DHCP-ga siisan u dhicin router-ka DHCP spoofing lagu qaban oo markaas router-ka intiisa dhaan uu noqon shabakadii uu ka soo dhicin marka taas ayaa lagu taliyaa. Okay, sawirkan ayaa wuxuu muujinayaa DHCP noociisa iyo muhiimadda oo faa'iido u leeyahay. Okay, dhismaha weyn oo enterprise qaabkeeda yani inta waa gedged edge distribution multi-core waxa yaala door core waxa yaala switch ah catalyze ah yani ku xirayo faracyada kala duwan. Okay, meeshan kale waxa yaala building-ka DHCP current waxaana computer caadi ah waay marka wuxuu ku xirayo access switch ka ku xirayeen core switch ama distribution switch kadib distribution kale ku sii xirmayaan si connection ka galaan qaybtan server room ka way marka yani waxa ku xiran labo head core oo ah yani switchada waaweyn catalyze-ka marka waxa yaalo call manager iyo loo isticmaalo voice over IP waxa kale yaalo corporate server la yaalo iyo server istaad oo DHCP kan waa muhiim ah marka DHCP inta yaalo waxa la rabaa in shabakadan kuwa inta yaalo soo codsadaan IP address-kooda si gooni u siiyo kuwa halkan yaal soo codsadaan IP address si gooni u siiyo system admin-ka iyo system log system meesha ku tigsan marka yani group walba ama department-ba IP address-keeda si gooni u siiyo raba dhowr bool in la xirayo yani holadan noocaas ah in qaataan IP address noocaas ah holadan kale department-kiisa in qaataan IP address noocaas oo kale marka diisan computer-ka loo daaro oo kale markii waxay qaadanayaan IP address yani adoo u baahnayn inaad geliso shabakadana waxay qabsanayaan shabakada caadiga ah kulliin taas communicate ku dhacaya marka DHCP faa'iidada noocaas ayuu leeyahay يعني كم سيد الآن دونه راح تتعاون دونا إنكم حسيال قاب configuration يعني سيسكو router لو سميه إذا أنا أركض دونا server عن سيرو سميه حلو أكبرن دونا كورس MCSA أو Windows server كا أما قاب router لو سميه أكبرن دونا CCNA أو قاب سيسكو إن شاء الله لكن DHCP server كا مك programming switch كا أو programming server كا أما router كا switch سيسكو لذي waxaa qaybta privilege mode-ka waxaa IPDCP pool magaca usbeynaysaa kadib waxay imaanaysaa import all yani soo kuli oo soo koobiyo hadii import DNS dalada DNS ama Windows server ku tigsan oo kale asaa ku soo qaadanaya dad ku xidhan shabakada caadiga ah gelinaysaa ama shabakada caadiga network shabakada IP address-ka range-ga iyo subnet mask gelinaysaa default route meesha ka baxayaan yani default aan oo ku turaysaa router-ka si connection-ka si caadi ah u sameysmo marka example-kiisa saan camal kamid ah qaabka loo qoray code-ka DHCP execute address-ka yani IP range-ga qoraysaa iyo IP range-ga intuu ka yahay DHCP execute kuwa la xadiday maartay IP address-yada xadiday tiradaas inta la isticmaalin u xadiday oo kale kadib DHCP pool 0 asminaysaa poolkan inuu isticmaalo waa shabakada class C-ga
سي مركا بلا بنا بقول الله إلى بقول الله سأيو سعيا أبو دي بيا إلى بقول لك أنا مركا نوع عسنا ولا سميا